maalmaha waxa socday saddexdan toddobaad ee u dambeeyayba waan wadnay mashruuc daaweyn waa ogtiinoo xilli xuno muddo 5 bilood oo isku xigta oo xiriir ah waxa abaartu inoo haysay sidii ugu adkayd gobollada qaarkoodna 3 sano ayay abaartaasi tirsanaysaa waa ogtiinoo dayrtii u dambeysay weyn marka waxa xoolii ku timi baadlaan iyo biyo la'aan labadiiba waxay keentay inay xoolo guuraan oo gaadiid lagu qaado qaarkood waxay keentay inay xoolo badan naga baxaan oo ay dhintaan waxay keentay in dad badan ay ceeroobaan dadaal fara badan bay xukuumaddu samaysay dadaalkaasi waa ka aynu ilaahay mahadii halkan ku soo gaarnay ilaahayna uu inala qabtay markii ay xukuumadda iyo dadweynuhu iska kaashadeen iyo ganacsatadu inay xoolo ururiyaan oo dadka wixii ay rooba ama wixii xoolo yar u gacanta ku haya in cunto lala gaaro laakiin mashruucan imika ay weydiinayso socday dadaaladaasi xukuumaddu ay samaynaysay ayaa waxay nagala shaqaynayay dad badan waxay nagala shaqaynayay hay'ado caalami ah oo xoolaha ku lug leh oo nagala shaqeeya waxay nagala shaqaynayay nimanka ganacsatada waaweyn عربات حولها إنجا يبسده أما قاركود محشردا مال جديان ونكوجو لسنا الحمد لله رب العالمين إن الدكاترة تتماتو ينهي هذه يجونا الشركة يوغندا أي سعودي جو بيان ثلاثة أيام وهي هذا سي ومرخات فر هراء يجوا حقيقيين حوالين عظمات طبعا ما كان الدكاترة تباتني إلهي ما حنكر تشيننا مددو sidii aan horaba u sheegnay in xooli la furo